waa channelkeena barta YouTube-ka aan ku leenahay BBA News kaasoo inii soo gudbin doona akhbaaraadka Soomaalida khaasatan kuwa Soomaaliya ama geyiga Soomaalida meel kasta ay ku nooshahay maalintii shalay ahayd oo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre laga qaaday ama loo waxyuubiyay xilkiisii Ra'iisul Wasaarenimo taas ay ku sheegeen bulshada Soomaaliya inay tahay meel ka dhac ama wax oo dastuurka ama jabinayso sharciga u yaala dastuurka Soomaaliyeed waxay ahaataba halkan nagala dhageysta wixii akhbaarada Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo isagoo oo waliba markaasi wata gaadiid aad u fara badan oo ay ku jiraan kuwa ciidan iyo kuwa markaasi madax ayaa waxa uu aaday dhanka madaxtooyada waxa uu galay madaxtooyada waxa soo baxaya warar kala gedisan oo sheegaya in Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre uusan tanaasuli doonin isla markaana uu markaasi saacadaha soo socda uu la hadlayo saxaafadda isla caawa uuna ka soo horjeesan doono wixii maanta baarlamaanku ay sameeyeen sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu soo saaray warqad uu markaasi ku naqdinayo talaabadii baarlamaanku ay kalsoonida kala noqdeen Mudane Xasan Cali Khayre dhinaca kale madasha xisbiya qaran ayaan iyagu ka hadlin isla markaana u muuqdo kuwa isha ka daawanaya ama wajaan iska eeganaya halkaas rabeynaya inay la fagel ayaga la isku jabiyay mar uun isku dhuftaan madaxda ugu sarsareysay dalka warqad soo baxday oo wiifta laakiin aysan soo saarin madashu oo been abuur ahayd ayaa mahad salaad waxa uu sheegay in ay been abuur tahay oo warqadaas oo loo qabay in madashu soo saareen ayuu ku tilmaamay waxba kama jiraan dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal iyo waliba markaasi Muuday iyo ayaa iyaguna kadib shaqadii ay saaka qabteen oo ay Ra'iisul Wasaaraha xilka kaga xayuubiyeen waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho iyaga oo markaasi madaxtooyada jooga xildhibaanadiina ay isku helinayaan in Ra'iisul Wasaaraha xilka ka qaaday haddaba siyaasadda daawadayaal way cakiran tahay laakiin inta aan uga galin ayadoo faahfaahsan waxa jira xataa warar kale oo sheegaya waxaan inay ahayd istiraatiijiyad la isla ogyahay laakiin inta aan uga galin ayadoo faahfaahsan waxaan idinku codsanaynaa in barteena YouTube-ka subscribe tirahdaan sidoo kalena gambaleelka furataan like saartaan muuqaalka siina share gareysaan oo la wadaagtaan saaxiibadiina si markaasi ay u helaan wararka degdega ah ee aan soo marinayno bartan aynu ku horeynay sida ay u jeedaan gaadiidkaas waxay wadaan Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo saacad gudahood markaasi soo degtay ku soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan International Airport sida ay u jeedaan asaga iyo waliba baabuur aad u fara badan oo galbinaya ayaa waxay markaasi u jeesteen dhanka madaxtooyada waxaana la socday ciidamo aad u fara badan iyo waliba gaadiid kala gedisan oo markaasi ah gaadiid ay saaran tahay madax Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu aaday madaxtooyada isagoo oo kulamo gooni ay wada tashiyo la sameynaya qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka gaar ahaan kuwa isku dhawaayeen iyo waliba golaha wasiirada xubno ka tirsan oo markaas saaxiibadiis ahaa ama dadkii saaka ay birta wada qaaday waxa soo baxay warar kala gedisan oo sheegaya aan ku horeyn war waxa jira inuu mala awaal yahay in kale ilaa iyo hadda ay warbaahinta qaranka TV1 aysan xaqiijin laakiin aan ku daba jirno oo ah in istiraatiijiyadan ay ahayd mid la soo degay oo ay soo degeen madaxda dawladda federaalka oo Ra'iisul Wasaaruhu ugu horeeyo iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama muddaxileedkoodii ay dhamaar rabtana ay ahayd qorshe ay soo degeen in 2 sano Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre uu markaasi motion laga keeno isla markaana motionka lagu tuuro sidoo kalena 2 sano extension dawladdan loo sameeyo ama loogu daro isagoo waliba nabad iyo nolol oo jooga sidaas la midana madaxweyne loo sharaxo marka muddadaasi ay dhamaato xisbigii la asaasayna uu gudoomiye ka noqdo inta ka horeysana xildhibaanada riyadoodii ay jeclaayeen ee ahaa inay mar uun isqabtaan madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha lagu mashquuliyo oo cajilada loo daaro Ra'iisul Wasaaruhuna uu markaasi ka tanaasulo booskiisa laakiin uu hogaamiyo xisbiga wararkaasi ma hubo laakiin waa war dhici kara hadii ay kalsoonidoodu ay sareyso madaxda waa war ay ku heshii karaan ama go'aan ay qaadan karaan laakiin wararkaas waxa jira warar ka duwan oo sheegaya in Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre uu gabi ahaanba arintan uu ka xun yahay sidoo kalena uu markaasi qorsheynayo inuu waxba kama jiraan ku tilmaamo mooshinkii xilka looga qaaday saaka mooshinba ma ahayn arintii adu degdeg ahayd in la soo agaasimay xalay ee xilka looga qaaday inuu ku tilmaamo waxba kama jiraan ama mid aan sharci ahayn taa bedelkeedana uu codsado in xildhibaanadu hadii xataa ay ka qaadayaan kursigiisa inay si toos ah intay u imaadaan baarlamaanka ay markaasi sameeyaan in ay si xaqa uga qaadaan iyadoo aan qaylo iyo buuq iyo fowdo iyo wax ka kacay ay si jirin sidaas inuu ku adkeysanayo ayay ila wareedyo kale oo warbaahinta qaranka TV la hadlay u sheegeen
isku soo wada duubo labada arrinba waa laba arrin oo suurtagal ah inuu ra'iisul wasaare xasan cali khayre uu tanaasulay oo arrintaas loo been guurayo mucaaradka oo markaasi musharax uu yahay isaga isla markaana isaga madaxweynuhu isku qanciyeen iyo in arrintani uusan waxba kala socon oo kulay xanteeda uu hayay in mooshin laga keeni doono inkastoo mooshinka waraaqihiisa aanba markaasi la qaybin isla markaana dood aan laga samayn oo wuxuu si degdeg ah loo sameeyay ama lagu boobsiyay haddana waxaa muuqata in ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo golihiisii xukuumadda iyaga oo warmoog ah maanta dharbaaxo kulul ay ku dhacday haddii aysan arrinta istiraatiijiyadda aysan jirin dhinaca kale waxaa golaha wasiirada iyaguna ka jiray dhankooda kala qaybsanaan baaxad leh marka la eego waxaana jiray wasiiro ahna sidoo kale xildhibaano oo ka agdhawaa ra'iisul wasaaraha muddana markaasi calankiisa kor u hayay oo saaka ayagu gacanta kor u taagay ama ugu horeeyay dadkii seefta galka kala baxay ee ra'iisul wasaaraha la riday gudoomiye mursal muudey gudoomiye maxamed mursal aan iraahde iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa muudey iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ah kuwii maanta xilka ka xayuubiyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho iyagu jooga iyagoo markaasi u haysta in ay guteen waajibaad dastuuri ah iyo shaqo qaran oo ay xukuumadda inay meesha ka horleexiyaan ee ahayd waajibaad kor saaran iyagoo aaminsan ay magaalada Muqdisho joogaan dadka shacabka Soomaaliyeed ayaa arrintan aad uga walaacay in ra'iisul wasaaraha xilka laga xayuubiyo waxayna ku tilmaameen arrintan inay tahay mid qaran dumisnimo inta badan dadka waxaa jira qaar ayagu afkaarta xilka qaadista soo dhaweynaya waxaase jira shacab aad u badan oo ka soo horjeestay dhanka mucaaradka marka aan eegno Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu soo saaray warqad uu markaasi sheegayo in uu ku taageerayo ra'iisul wasaaraha in baarlamaanka maanta waxay ku sameeyeen aysan ahayn wax sharci ah isla markaana xilka qaadis sharciga waafaqsan aan loo marin ama aan lagu sameyn sida uu markaasi warqadiisa ku qornayd Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa u muuqda mid taageeraya ra'iisul wasaaraha laakiin taageerada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhibaato ku keeni karta ra'iisul wasaaraha ama haddii mucaaradku ay la saftaan ra'iisul wasaaraha maadaama lagu taageeray in uu yahay ra'iisul wasaare sharaf iyo karaamad leh sidoo kalena markaasi mucaaradkan waxyaabaha hadda lagu haystay ama suuqa la galiyay ay kamid tahay in mucaaradka iyo asagu ay doorashada dhankeeda afkaar ka noqdeen isla markaana ay aaminsan yihiin in doorashada bandal ka dhacdo taasoo ka dhigan haddii ra'iisul wasaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu taageero iyo madasha xisbiya qaran ay taageeraan inuu afkaartii iyo fikirkoodii uu waday ama uu xambaarsanaa taalaajligeedna loo helayo markaasi qiil si kastoo ay ahaataba waxaa jiray madasha xisbiya qaran warqad dhankooda ka socota shaabadooda iyo timbarahoodii leh oo baraha bulshada lagu arkay saacad gudeed isla markaana loo maleynayay in ayagu soo saareen laakiin arrintaasi waxay sheegeen inay waxba kama jiraan tahay mucaaradka ayaa iyagu waxay u muuqdaan in ay maanta ay neef ama xoolo qalayaan kadib markii ay isku jabiyeen saaxiibadii wada socday siyaasadeed haddii aysan istiraatiijiyad kale aysan u samayn arrintani inay halka ayada ah ay ka dareemayaan inay jab xoogan u geysteen oo ay wiiqeen awooddoodii aan la dhataali karin ee ballaarnayd ee baaxadda lahayd ilaahay ayaa awood iska leh ayna heli karaan hadda jaanis ay kula dagaalamaan hadba kii ay doonaan siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa iyagu markaasi u muuqataa maanta in ay heleen waxyaabo ay ku taamayeen 3 sano oo lasoo dhaafay oo ahaa inay mar kale irdhoobaan ama ay kala cararaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markaan eegno moorarka guud ee shacabka Soomaaliyeed shacabku aad ay arrintan uga xumaadeen run ahaantii waxayna kaga falceliyeen si aan inaba caadi ahayn waxay shacabku mar walba jeclaayeen in ay mideysnaadaan madaxda shacabku min waqooyi ilaa koonfur min raas casir ilaa raas gabooni min saylac ilaa iyo kudha waxa ay taageero xoog leh u hayeen madaxda qaranka Soomaaliyeed waxayna ugu hayeen waa kartidooda isku duubnigooda iyo wada shaqayntooda laakiin madaxda qaranku ayaguna ma aysan sameyn wax wanaagsan oo abaalgudkii shacabku waxay ka dhigeen in ay qalbiga ka jabiyaan ma aysan u abaalgudin oo sidii loogu lisay ugu maysan habeen si kastoo ay ahaataba xukuumaddan haatan iyo waliba dowladdan 4 sano jirtay ayaa waxa la filayay in ay dhameysato waqtigeeda iyadoo midaysan laakiin hadda waxa la dareemayaa in ay kala tageen iyagoo markaasi waqtigoodii aan dhameysan lama oga cidda ra'iisul wasaaraha noqonaysa laakiin ila wareedyo kala gedisan iyo xogo kala gedisan ayaa soo baxaya oo ah cidda laga dhigi doono ra'iisul wasaaraha ama loo magacaabi doono xasan cali khayre ayaa dhankiisa laga yaabaa haddii xataa istiraatiijiyad iyo qorshe aysan degin asaga iyo madaxweynaha inuu aqbalo xilka qaadista maanta lagu sameeyay isagoo dalka iyo dadka qalalaasay iyo fowdo u diidaya sidoo kalena ilaashanaya sharafka iyo sumcadda uu ummadda Soomaaliyeed ku dhex leeyahay taasoo haddii uu buuq furo laga yaabo in ay la guddoonto si kastoo ay ahaataba xaaladda Soomaaliya ayaa waxa ay tahay mid murugsan
waxayna dalku u cagta saaray dhabe fowdo ah haddii uusan si degdeg uga soo laaban sidoo kalena waxaa fooda inagu soo haysa doorashadii oo horey guddigu ay u sheegeen inaysan waqtigeeda ku dhici karin maahan siyaasadda waxaan anagu fahmi karno waa wax naga weyn isla markaana aan waxuun kala soco karno xogaana ka heli karno laakiin siyaasaddu waa mid isrurugta saacado ayay isku bedeshaa wixii ay doonto ayay dhashaa daawadayaal qodobada wararkeena inta aan qodobka ku xiga aan gaari doonay warka ku xiga sidaas iyo nabaddiino